Enterobius vermicularis Gooryaankan la dhaho waxaa la sheegaa inuu qof kasta ku dhacay haddii uusan ku dhicinna uu ku dhici doono waqti ka mid ah noloshiisa. Waa very common parasite in human, si fududna ku faafa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maanta waxaan ka hadli doonaa Enterobius vermicularis, sidoo kalena loo yaqaano pinworm ama threadworm. Gooryaankan waxay Soomaalida u taqaanaan dhowr magac, waxaana ka mid ah gooryaan duleed oo dul la jarjaray ayuu qaab yahay marka isha caadiga ah lagu arkayo. Sidoo kalena dirade iyo magacyo kala badan ayuu gooryaankan leeyahay. Gooryaankan wuxuu ku nool yahay mindhirka, waxaana lagu qiyaasaa dhererkiisa 1 sentimitir. Haddaba qaabkee ayuu jirka ku soo galaa gooryaankan lagu magacaabo Enterobius vermicularis? Sida aan wada ognahayba, wax kastoo pathogen keenaya ama gooryaan ha noqdo ama bacteria ha noqoto, jirka waxay u baahan yihiin meel ay ka soo galaan. Markay jirka soo galaan kadib ayaa qofku ay ku keeni doonaan cudur. Marka laga soo tago waxyaabo bacteria ah oo normal flora oo jirka si caadi ah ugu nool, oo markii jirka difaaciisa uu daciifo ugu soo rogaal doona. Marka waxaan rabnaa inaan fiirino qaabka gooryaankan jirka ugu soo galo. Qaabka jirka uu ku soo galo waa ingestion the worm egg, oo loola jeedo inuu qofka laqo ama ay cuntada u raacdo the worm egg oo ah ukunta uu dhalo gooryaanka. Markii qofka uu laqo ukuntaas kadib waxay ka gudbi doontaa caloosha. Ukuntu waa laqaday, calooshay ka gudbaysaa, waxay gaari doontaa mindhirka yar. Markay mindhirka yar gaarto, halkaas oo ukuntii ay ku dilaaci doonto. Mindhirka yar gaartay, ukuntii way dilaaci doontaa oo waxaa ka soo bixi doona waxa loo yaqaano larva. Larvaas marka waa wax hadda haddii tusaale ahaan aan ku bixiyo, waa ukunta markay dilaacdo sida caadiga ah jijila ka soo baxa sooma. Marka wax sida jijilka oo kale camal ah ayaa ka soo bixi doona. Markuu ka soo baxo larvahaas wuxuu u qaybsami doonaa micnaha markuu qaybsamana wuxuu aadi doonaa mindhirka weyn. Mindhirka weyn markuu aado, halkaas marka waxaa ka dhici doona adult female iyo male ayaa waxay ku sameyn doonaan waxa loo yaqaano mating, oo ah inay isu tagaan. Markay isu tagaan kadib marka habeenkii markii la gaaro, adult female-ka gooryaanka oo mataqaana dhidiga ah waxay aadi doontaa oo ay u soo dhaqaaqi doontaa anas oo ah makaanka saxarada. Eriyada oo saxarada ay ka soo baxdo ayay xaggeeda soo aadi doontaa, halkaas oo ay ku dhali doonto thousands of eggs. Ukumo fara badan, kumanaan ukumo ah ayay halkaas ku dhali doontaa, kuwaas oo sababi doona marka cuncun fara badan xilliga qabowga ah. Yacni female-kan waxay soo aadaysaa anas, waqtigii soo aadaysana waa habeenkii iyo waqtiyada qabowga ah waaye. Markay soo aado marka waxay ku dhali doontaa ukumo fara badan, thousands of eggs. Ukumahaas marka ukumo keliya maahan, waxaa raacsan waxyaabo chemicals ah. Waa marka sababta qofka cuncunka uu dareemayo waqtiyada qabowga ah. Waqtiyada qabowga ah cuncunka sababta uu dareemayo waaye. Marka gooryaankan waxaan rabnaa inaan isla fiirino calaamadaha ugu waaweyn ee lagu aqoonsan karo. Calaamadaha ugu waaweyn ee lagu aqoonsan karo waxay tahay cuncun laga dareemo perianal area. Perianal area sababta cuncunka loogu dareemayo waxay tahay maadaama gooryaankan uu dhalay thousands of eggs, ukumahaas ay sii raacsan yihiin haddana waxyaabo chemicals ah. Waxyaabahaas ayaa marka waxay keeni doonaan in cuncun fara badan qofka uu dareemo, khaasatan waqtiga qabowga ah. Sidoo kale waxyaabaha kale ee lagu arki karo waxaa ka mid ah qof hurdada inay dhibto. Maadaama qofka cuncun fara badan haddana fara badan uu dareemayo, hurdadana way dhibi doontaa oo sleep disturbance ayaa qofka ku dhici doonta. Marka waxaan rabnaa inaan fiirino daaweyntiisa iyo qaabka loo daaweeyo gooryaankan qofka uu ku dhaco. Daaweynta markaan ka hadlayno waxaa muhiim ah oo loo baahan yahay inaan daawo siino dhammaan xubnaha qoyska uu ka kooban yahay. Maxaa yeelay gooryaankan wuxuu ku faafaa si fudud oo qofka qaba cidiyihiisa ayay ku sameyn doonaan deposition of eggs oo ah inay ka buuxsami doonaan ukumaha gooryaanka, maadaama uu ka soo qaadayo meeshii uu xuqayay oo ah makaanka saxarada. Sida aan wada ognahay, qofka hadduu gooryaankan qabo cuncun zaid ah wuxuu ka dareemi doonaa makaanka saxarada, taas oo keeni doonta qofka inuu farihii la aado. Marka haddii uu farihii la aadana, faraha iyo cidiyaha intuu dhexeysa waxaa ka soo buuxsami doona oo ku aruuri doona ukumaha gooryaankan uu dhalay. Marka ukumahaas haddii qof kale oo cudurkan aan qabin keliya gacanta uu ku salaamo ama meel uu taabtay kala camal aad taabato si fudud, waxaa macquul ah in adigana adoo gacmaha iska dhaqin cunto kale saasna adiga cudurkii ku qaado. Marka faafitaankiisa ayaa fudud, sababtaas waaye sababta loo rabo
in dhammaan xubnaha qoyska uu ka kooban yahay daawooyinka loo siiyo. Daawooyinka lagu daaweyn karo infectionkan enterobiasis waxaa ka mid ah albendazole, mebendazole iyo parenteral pomade. Daawooyinkan waxay dili doonaan gooryaanka way dili doonaan, laakiin ukumaha ma dili doonaan. oo waxaa aad u dhici karta in reinfection uu yimaado, oo ah in adigoo daawooyinkii qaatay in mar kale uu kugu soo laabto gooryaanka. Midaas waxaa loogu hortagi karaa in lagu dadaalo nadaafadda gacmaha, la iska dhaqo xilli walba. Yacni mar kasto reinfection waa wax ugu weyn ee mataqaanaa gooryaankan uu keeno waaye. Marka waxaa habboon qofka haddii gooryaankan ugu dhacay daawooyin xitaa hadduu qaato xitaa weli wuxuu usii nugul yahay in cudurkii ama gooryaankii haddana mar labaad uu kusoo laabto. Sidaa daraaddeed marka waxaa muhiim ah xilli kasta uu wax cunaayo iyo weliba mataqaanaa xitaa hadduu cuncun dareemo xitaa in si daaragti ah uusan gacanta ula aadin makaanka saxrada. Marka waxaa wanaagsan mar kasta inuu ku dadaalo qofka nadaafadda. Haddaba maxay noqon karaan complicationska ama waxyaabaha ka dhalan kara qofka haddii cudurkan ama gooryaankan uu ku dhaco kadibna in muddo ah uu iska qabo isagoo iska daaweyn. Complicationka wax ugu waaweyn ee ka dhalan kara waxay tahay horta qofka markuu xanuunka qabo wuxuu sameyn doonaa scratching, xoqitaan zaa'id ah qofka marka uu sameeyo uu meesha makaanka saxrada uu xoqo, maadaama laftigiisa cuncun fara badan uu ka dareemi doono, waxay keeni doontaa inay ku dhacdo bacterial super infection. Sidaan wada ognahay bakteeriyadu waxay dul saaran tahay maqaarka, marka haddii ay hesho meel duleel ah oo ay ka gasho way geli doontaa, waxayna kugu keeni doontaa bacterial infection. Marka mawduuceena maanta intaas ayuu ku egyahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.